dawladdu waxay qaranka u qaabilsantahay shaqooyin halbowle u ah jiritaanka dalka sida sugidda amniga, kubcinta dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada aasaasiga u ah ay ka midka yihiin waxbarashada, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, dekadaha, erboodyada iyo biyo-xidheennada. dawlad walbaaba waxay dhaqaale ka heshaa shacabkeeda iyadoo ka qaadaysa noocyo badan oo cashuur ah. cashuurahaasi ay ka mid yihiin cashuurta iibka. cashuurta ciibku waa cashuur caalami ah oo dawladuhu ay ka helaan dakhliga ugu badan, taasoo ku waajibta dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee ka dhaca kala iibsiga alaabaha iyo adeegyada. cashuurtani waa mid sharci ah oo baarlamaanka Soomaaliland ansixiyay sanadii 2016 waxayna ku xusan tahay xeer lambar 7/2016 cutubkiisa 3 qodobada 153 ilaa 172. tacriifadeeduna waa 5%. haddaba si ay dawladdu u qabtirto adeegyada aasaasiga u ah shacabka waxaa la gaadhay xilligii la bilaabi lahaa fulinta cashuurta iibka, gaar ahaan laba qaybood ay ka mid yihiin korontada iyo isgaarsiinta, iyadoo la raacayo sidan hoos ku xusan. biilkaaga isgaarsiinta waxaa kaa go'i doonta lacagta ku hadalka ee aad ku shubato moobilkaaga cashuur dhan 5%. tusaale ahaan haddii aad ku shubato $1 oo ku hadal ah waxaa kaa go'i doonta 5 senti, waxaanad heli doontaa 95 senti. waxaa raaci doontaa cashuur dhan 5%. tusaale ahaan haddii biilka korontadaada uu bishii noqdo $10 waxaa ku raaci doonta 50 senti oo u dhiganta in ka yar 4500 oo shilinka Soomaaliland. wadarta guud ee biilkaaguna waxa uu noqon doonaa $10.5. muwaadin ka qayb qaado dhisidda qarankaaga adiga oo bixinaya cashuurta iibka ee korontada iyo isgaarsiinta. tani waa fariin ka socota wasaaradda horumarinta maaliyadda